بسم الله الرحمن الرحيم وتريننج with solar groups معلنك عبد الناصر اسماعيل. ايميل كسيدي عدد هيد info@solargroups.com. ويب سايت كنا solargroups.com. عاو waxaanu ka hadlaynaa software reviews number 3 kii saddexaad ayaan ka hadlaynaa. kow iyo labo ayaan hore usoo sameynay, aad ayaa loo xiiseeyey, waxaana jecelnahay mustaqbalka kuwa aad u fara badan inaan sameyno insha allah. wixii software ah oo casharadan aad ku aragtaan waxaad download kaga soo samayn kartaan solargroups.com. kolley waxaan idin tusayaa sidaa download ku samayn kartaan anigoo idin soo diraya link email ah. marka waxaan ka sheekayna waa 8 software oo kala duwan. intaanan software ku gelin waxaan la soconaa website keeni inuu diyaar u noo yahay solargroups.com. dadkan ugu cusub ee soo gelaya website-ka shaqo badan ayaan ka qabanay. waa simple, saas uma sii weyna, laakiin waxyaabo badan ayaa laga bartaa. tutorialka qofkii raba registrationka waa isku samayn karaa si aan automatic ahaan email lagu soo dirno iyo casharadan samayn lahayn in la soo codsado la soo sameeyo. marka qofkii doonaya create an account ayuu sameynayaa, ka bacdi automatic ahaan ayaa waxa loogu soo diraya wixii casharo nagu cusub. waxaa kaloo nagala soo xiriiri kartaan dabcan facebooka, twitterka iyo youtube-na waa ku wada jirnaa haddii link a ku sameynaysaan kuwaan oo dhan. intaanan kasii bixin weli waxaan idin tusi lahaa kii bortalka ahaa in uu shaqadiisa wax yar ay ka dhiman tahay, uu dhammaan rabo. marka kan markuu dhammaadana dabcan softwaredii kulli waa ku wada jiraan iyo wixii loo baahdo. useradii test ayaan ku sameynaysaa ujeedaan. marka qof walba waxaa la siinayaa nambaradan iyo magaciisa ama si looga dhigo password magaciisa, kana username looga dhigo. marka waxaa laga dhigayaa user, ka bacdina waxaa loogu darayaa softwareku doonayo ayaa loogu darayaa si uu download u samaysto meel walba oo adduunka uu ka joogo. kaasna insha allah markuu soo galo aniga ayaa email idinku soo sheegi doona. marka maxaan ka sheekaynaynaa? waxaan ka sheekaynaynaa 8 software oo kala duwan oo powerful ah, aad quwad u leh, laakiin simple ah oo aan ka qaadanaynin space iyo wax walba. marka softwaradaas waxay kala yihiin internet password lock, program century, restart later control, mp3 to ringtone gold, password recovery bundle 2010, alio flash intro banner maker, all office converter platinum iyo ugu dambeyntii smart install maker. waa software aad easy u ah, kulligoodana waxay ku jiraan solar groups iyagoo full ah. haddii aad ku wareerto sida loogu duubo waxaa dabcan email ahaan noogu soo diri kartaa info@solargroups.com. marka softwaredii halkan ayaynoo yaalaan, waa diyaar. waxaa ugu horeeya internet password lock. muxuu yahay? waxaa laga yaaba dadka qaarkood in aysan doonaynin kombiyuutaradooda in la isticmaalo qof saaxiib ama qof gurigiisa yimaada. marka saa awgeed ayaa waxaa la samayn karaa in aad tidhaahdid internetkii ma shaqaynaya, inaad tidhaahdid log a kaga dhigtid, password aad gashatid. marka waxa ugu horeya aan samaynayna waxay tahay double click ayaan ku sameynaynaa. hadda waa logta ayuu yahay sidan. marka haddii aan idhaahno waxaan sameynaynaa configuration ayaan sameynaynaa, passwordkii annaga aan u samaysanay ayaan gelinaynaa. markii download ku samaysay password ayuu ku weydiinayaa dabcan. marka waxaa leedahay block IP address. blocks wuxuu blocking garaynaya ku leeyahay all internet and network access. wixii network iyo internet adba blockage ayuu ku sameynayaa, sidaa ula soc ayaa lagu leeyahay. marka kan sidaan ayaad odhan kartaa. wuxuu ku leeyahay automatically relocks IP address periodically recommended ayuu ku leeyahay kan autologan sidan u taabo. disable web browser ayuu ka dhigi karaa, shutdown ayuu ka dhigi karaa website-yada. kan halkan sidan waxaa loo ogol yahay, waxaan loo ogolayn qofka. marka qofka ma arki karo, taaska baarna ma yaallo, wuu ka dhuumanaya sababtoo ah disable ayaa taaska baar xagga looga dhigi karaa. waxaa la dhigi karaa lock internet after browser closes, conceal system tray icon, qari ayaa leedahay qofka saan u arkin, iyo ama taaska baar ka tus. marka haddii disable aan idhahdo kan alla waa u dhihi karaa, waa u diidi karaa. marka safe ayaan leeyahay. markaan idhaahdo waa locked ayuu ku fadhiyaa, waa xiran yahay. marka seen ku ogaan karnaa? waxaan leenahay waxaan tegaynaa right click mozilla firefox. markii aan isku dayno dhag waa furay, horaa laga xira ujeedaa. okay, maxaan kaloo brobayn karnaa? waxaan brobayn karnaa internet explorer ayaan furaynaa. waxaan leenahay internet explorer noo fur. kan waa isku daya inuu furo, horuu ka xiray sababtoo waxaad leedahay internetkii ayaa down iga ah si aan lagaaga isticmaalin. marka waa very simple. haddii marka aad doontid markuu qofka saaxiibka uu kaa tago in aad soo furatid, dabcan isla sidii ayay ugu noqonaysaa. waxaad leedahay passwordkeygii. okay ayaad leedahay. waxaan sameynaynaa kan ka wada saaraynaa gebigiisa. safe ayaad leedahay. internet lockta ayuu ku fadhiyaa. waxaan leeyahay unlock iga dhig ayaan leeyahay, passwordka ayaan gashanayaa. marka qofkii uu iga tegey unlock ayaan leeyahay. greenka ayaa iisoo baxay. minimum sidaan idhaahdo waxaan furayaa kan ayaan furayaa. dabcan kuwii horaa furnaa marka wuxuu ku leeyahay
restart ma ku sameeyaa marka kuwii hore asaan u furnaa haddii aan idhaahdo new session aan u baahanahay haddii kale aday ku jirtaa marka kuwii hore un iisoo celi ayaan leeyahay kuwaygii hore oo ii furnaa ayaa la iisoo celiyey ka bacdi haddii aad doonaysid internet explorer inaad gashid isla sidoo kale wuxuu ku leeyahay kuwaagii hore baan kuu soo celiyaa mise go home dheh kii caadiga ii fur marka internet explorer hore ayuu kaga furayaa waana very very simple ayuu noqonayaa marka kaas wuxuu noo ahaa casharkeeni kii ugu horreeyey oo ahaa internet password lock ahaa marka maxaa ku xiga waxaa ku xiga program central kaasoo ah in kana programka uu blockage ku sameeyo ama uu joojiyo programka waa very simple waa kanoo kale stop ayuu ka dhigaya wixii program waxaa jirta adiga ku qaas ah oo aadan doonaynin in qof kale uu soo galo siduu u shaqaynaya program ku sameynayna double click ayaa leedahay programka configurationkii wax walba waa sameynay laakiin halkan waxaan intaan ka bilaabayno weli waxaan ku sameynay male marka waxaan leeyahay marka ugu horeysa haddii aan halkan eego waxba ma yaalaan unlock ayaan leeyahay unlock markaad tidhahdid baasuurka dabcan adaa u samaystay markii hore waxaan leenahay unlock ayuu ka dhigayaa configurationka hadaa ku noqdo wuxuu ogolaya marka add blocked program waa ku darayaa marka asagoo sidan kugu furan oo sidan ah ayaad waxaad leedahay very simply startka tegaysa programka inaad blockage ku samaysa aragti calculatorkan aan rabnaa blockage inaan ka dhigno halkan ayuu soo galaa ujeedaa haddaa aragtid baasuura ku darsan karta haddii kale uma baahna add ayaa leedahay halkan ayuu soo galaya waa ka baxaya maxaan kaloo ku daraynaa notepad ayaan ku daraynaa halkan ayuu imaanayaa add ayaan leeyahay markaan dhameeyo close ayaan leeyahay waa active hadda marka active inuu yahay bal aan probaan ku samayno haddii aan tago starka calculator if aan idhaahdo maxaa dhacaya inuu soo baxo iska dayaya waa ka tegaya haddii aan idhaahdo notepad tag inuu ifruu diidaya waa ka boodaya laakiin haddii aan idhaahdo deactivation ka dhig dabcan password sababtoo ah qof kasta oo ku yimaada inuu deactivation ka dhigo wadaad password ma soconayso marka iminka ma noo shaqaynayaa calculatorkeeni waa kaas waa noo shaqaynayaa notepadkeeni waa noo shaqaynayaa waa kaas marka kan waa very simple sida loo isticmaalo waa waxa ugu muhiimsan oo maaragtay blockage lagu sameeyo waa barnaamij oo portable ah solo groups ayuu ku jira meesha ayaa ka qaadanaysa sida oo loo isticmaalo iyo kiigiisa iyo furayaashiisa wax walba way ku jiraan waxba dhibaato male okay kan minimize naga dhe kan saddexaad muxuu yahay kan saddexaad wuxuu yahay restart later control sababta oo ah programkan waa program runtii aad u yar laakiin cajiib ah muxuu sameeyaa barnaamijkan wuxuu sameeyaa inta badan windows markii updateka ay samayso mar walba aad program aad samaynaysid cashar aad samaynaysid wax walba wuxuu ku leeyahay computerka restart ma doonaysa inaad ku samaysid updateka ku dhammaaday runtii updateka wuu joojiya computerka culays ayuu ka dhigaa mar walbana wuxuu leeyahay ma doonaysaa restart in aad ka dhigtid ma doonaysa ayuu ku leeyahay laakiin waxaad ogaataa group policygan sida loogu sameeyo waa intusi karaa laakiin kan haddii double click aan ku sameeyo sidaan u furo waa loja software la yidhahda continuous ka dhigan waa portable marka waa kan kii aan xasuusanay wuxuu ku leeyahay automatic update do you want to restart computer now kan ayaa xoogaa ku qarsan waxba dhibaato male marka haddii aad doontid halkan ayaa tegaysaa waxaad leedahay computerkayga waxaan doonayaa intaas maaragtay restart inaan laga dhigan ayaan doonayaan leeyahay ama waxaan leeyahay reset window default ayaan leeyahay marka change mode after reboot ku isbedelayaa haddii aan idhaahdo kan ka saar halkan wait computer to restart oo waxaan dhihi karaa waxaad iga dhigtaa inta daqiiqa aad doonaysa ayuu halkan kaaga dhigayaa waxaad leedahay xataa ilaa iyo 1 saaco kale 2 saaco kale 3 saaco kale wixii adiga aad doontid ayaa halkan ku qoranaysaa waxaad leedahay ilaa iyo halahaas computerkayga ma dami karta ayaa leedahay marka waa muhiim kan sababtoo ah adigoo ina middle haddii computerka aadan la joogin wax kuu duubayo waxaa laga yaabaa inuu automatic restart isku sameeya laga yaaba sidan ayaa soo baxda mar walba laakiin computerkan wuxuu sameynayaa softwarekan wuxuu sameynayaa wuu kaa joojinayaa ilaa iyo xataa wuxuu ku leeyahay 12 hours ayaa halkan qoran ujeedaa wuxuu ku leeyahay computerka restart ma doonayo updatena hadduu samee laakiin waxba restart ku sameyn ayuu leeyahay kana muhiimadiisa sidan ayuu yahay haddii software lagu duubayo culays ayuu ka dhiga in laga joojiyo laakiin waxaa kasii fudud dadkiinan doonaya inay sii ogaadaan oo kale kan koley waa fahanteen computerkana download waxaa kasoo samayn kartaa solo groups waana very simple laakiin haddii aad doonaysid in aad si simple ah usoo saartid aad doonaysid kan waxaan sameynaynaa iska xiraynaa simple haddaad doonaysid waxaad tegaysaa starka ayaa tegaysaa meeshan ay ku qoran tahay ayaa waxaad ku qoraysaa GPL
edit oo ay ka timid group policy edit .microsoft console group policy edit .microsoft oo meeshii editka laga sameynayay computerka oo computerka calooshiisa ayaa la yidhahdaa marka dusha window kasta XP 2000 Vista 7 hadda waxaa ujeedaan 7 ayaan isticmaalaya waa lagu isticmaali karaa marka maxaa la sameynaya double click waxaa ku sameynaysa local computer policy ayaa double click ku sameynaysa waxaa kusoo baxaya computer configuration laba jeer riix administrative templates laba jeer saan u riix Windows component sii weyne markaa sii weynaysid kana sidaan usoo sikeedaa doontid meesha ugu hooseyso waxaad raadinaysaa Windows update meeshay ku qoran tahay waxyaabo aad u fara badan ayaa kuu soo baxay haddii aragtay halkan a delay restart for the schedule installation haddii double click aan ugu sameeyo wuxuu halkan leeyahay enable ayaad leedahay halkan waxaad leedahay restartkiisa waxaad iga dhigtaa 5 daqiiqo ayuu ku leeyahay waxaan leeyahay 120 daqiiqo ama waxaan doonayaa 500 daqiiqo waxaad doontid ay ka dhigaysaa apply okay ayaa leedahay computerkaaga update ka soo lagu sameeyo wax walba lagu soo shubo ilaa adiga amar ay ka siisid restart ma sameynayo kaas ayaa muhiim in la ogaado restart sameyn kari maayo marka mar walba halkan ka bedel halkii aad tagaysay oo ah wuxuu leeyahay okay iska halkan iska xir marka waxaad tagaysaa halkan sidan ayuu kugu imaanaya local policy double click saan u samee computer configuration Windows administrative templates component hoos meesha ugu dambaysa Windows update-ka iyo kuwa kale ayaa ku yaala aqri do not display install update and shutdown option ma doonaya leedahay double click ku sameyn walba enable that raid oo ku shaqeynaya marka kaasna sidaas ayuu shaqeynaya sidaas waa in la ogaada kan waa loo isticmaali karaa kaasna loo isticmaali karaa okay waxaa ku xiga MP3 to ringtone gold dadka dhalinyarada ah waxay mar walba ay isticmaalaan ringtone-kan telefoonada usoo dhaca telefoonada mobileka ama cellular qofas u yaqaano usoo dhaca ayaa jira marka waxay jecel yihiin ringtone-ka ama soo dhicitaanka codka ku yimaada maahe codad kale ama heesa Soomaali dad quraan ay gastaan dad nashiiday gastaan qof walba nooc ayuu gastaa marka waxaa idin diyaariyay software la yiraahdo MP3 to ringtone gold oo runtii cajiib ah laakiin simple ah sida loo isticmaalo marka software-ka hadii aan u furno halkan sidan u yaala waa simple waa